وعنا ونكسن دعوة iyadoo oo maanta lagu caleemo saaray magaalada Garowe ee xarunta maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo ku-xigeenkiisa isla markaana xafladda caleemo saarka ay ka soo qayb galeen madax badan iyo wafuud kala duwan oo ka kala socotay deegaanada ay Soomaalidu degta haddii ay noqon lahayd jigjiga gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya iyo gudaha Soomaaliya oo wafdi balaaran oo hormuud u ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay ka qayb galeen xafladda caleemo saarka ayaa sidoo kale waxa ku jiray madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya oo iyaguna lagu casuumay xafladda caleemo saarka ee Saciid Cabdullaahi Deni inkastoo xafladda caleemo saarka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo ku-xigeenkiisa ay ku dhamaatay si habsami leh haddana waxaa soo baxay muuqaal muujinaya in hogaamiyaha maamulka SSC Khatum Cabdiqaadir Axmed oo cali aanu ku faraxsaneen habkii Garowe loogu soo dhaweeyay iyo maamuuskii ay madaxtooyada Puntland u fidisay madaxweyne Firdhiye oo khudbad ka jeediyay madashaasi ayaa waxa uu sheegay in afayeenka madaxweynaha Puntland iyo madaxtooyadu ay maqaamka maamulkaasi hoos u dhigeen iyo gaar ahaan wafdiga uu isagu hogaaminay isagoona sheegay in uu u baahan yahay in martidii ka soo qayb gashay uu isu sheega cidda uu yahay lama og waxa ku dhaliyay in hogaamiyaha SSC Khatuma uu madashaasi isku bara dadkii ka soo qayb galay bal aanu eegno khudbadda uu madashaasi ka jeediyay hogaamiyaha SSC Khatum Cabdiqaadir Axmed cali oo isagu sheegay in maqaamkiisa hoos loo dhigay sidan ayuuna muuqaalkaasi u yeelay Soomaalidu waxay tiraahdaa haddii lagu sheego waa la is sheelaa haddii lagu sheelana waa la is sheegaa dabaraan iyo tiimkiisa waxaan ka dareemayaa waa is sheeleena aan sheega anigu haddii Ilaahay ka dhigo xasan cali khayra wuxuu bilaabay caadi hal iska dhigo marka anigu caadi baan ahay idina caadi iska dhiga haddii Ilaahay yiraahdo anigu waxaan ahay magacayga la yiraahdo Cabdiqaadir Axmed cali waxaan ahay hogaamiyaha maamulka SSC Khatum oo ah maamulka meel gaara oo ka arrimiya deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn oo ka tirsan Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxaan ku noqonayaa anoo soo koobaya dhismihii iyo aasaaskii maamulkan sida uu ku yimi sanadii la soo dhaafay gabi ahaanteedba deegaanka waxa ka soconayay dagaal iyo xadgudub aan turaal lahayn oo ka imanayay maamulka arrimiyaha Hargeysa halgan dheer kadib Ilaahay subxaanahu wa ta'aala deegaanadaas nabadgelyo u soo celiyay iyo xasilooni 6 February ee sanadii tagtay 2023 dadweynaha ku dhaqan gobolada SSC Cayn oo ay hogaaminayaan madaxda dhaqanku waxay go'aan ku gaareen inay aasaasaan dhidabada u taagaan maamul deegaanadaasi ay iska leeyihiin oo arrimiya August 5 baana loo doortay inay saaxiibaday inaanu noqono xubnihii hogaamin lahaa maamulka cusub ee deegaanadaas ka arrimin lahaa waxaanu ku nimi rabitaanka shacabka SSC Khatum waxaanu ku joognaa rabitaanka shacabka SSC Khatum waxaan rajaynayaa inuu waari doono rabitaanka shacabka SSC Khatum goboladaas waxa ka dhacay dhibaatooyin runtii qofka looga waramayo aan maraysan karaynin ay sida wax u dhaceen si kastoo lagu faahfaahiyo waxa ka dhacay barakac waxa ka dhacay dumin waxa ka dhacay dil waxa ka dhacay burbur iyo dhaawac aan la qiyaasi karaynin bishii August 25 kadib maamulka iyo shacabka SSC Khatum isku duuban waxay meel iska dhigeen oo ay iska horleexiyeen duulaankii argagixisada ahaa ee lagu soo qaaday deegaanadooda magaalada Laascaanood horaan u sheegay haddii lagu sheelo waa la sheegaa magaalada Laascaanood waa magaalada kaliya ee Soomaaliyeed ee muddo 8 bilooda si joogto ah loola dhacay madaafiic arxan darro ah haddii ay magaalo hore oo Soomaaliyeed ka dhacday hal ay xusuusiyo muddo 8 bilooda baa si cadownimada loo duqaynay annagu cadownimada loo geystay uma tiirinayno beelaha Soomaaliyeed deriska nahay
iyo shacabka reer waqooyi ee aanu ehelkana uma tirinaynaa waxaan u tirinaynaa oo geystay oo lagula xisaabtami doonaa rajiimka hargeysa ka arrimiya ee ugu horeeyo Muuse Biixi Cabdi inay sidaa naga tahay waxaanu xaqiijinay 25 August markii aanu rajiimkii jabinay shacabkii aanu ehelka ahayn in wax loo geysto oo aanu colowno waa ka joogsanay Soomaaliya ma khad ka ahay arrimaha aan xusayo uma xusayo hiirtaanyo iyo nacigu jira laakiin waxaan doonayaa halkan oo ay maanta ku dhan yihiin madaxdii Soomaaliyeed oo heer walba dhaqankii Soomaaliyeed oo meel kasta ka yimi beeshii caalamka oo meel kasta isaga timi inaan xusuusiyo in dadkayga dhibaato loo geystay si ay u dareemaan in dhibaatadooda la hadal hayo si ay u dareemaan in dhibkii loo geystay la hadal hayo sidaa waxaan u leeyahay in ka badan 300,000 oo qof baa ka barakacay magaalada Lascaanood markii dagaalkii dhamaaday dadku waxay u baahdeen dib u dejin bay u baahdeen burburkii dib u dhis buu u baahday waxa xusid mudan beesha caalamka qaybaheeda kala duwan wax haba yaraatee doora kamay geysan dib u dejintii iyo dib u dhiskii dadka dhibaatada loo geystay waana arrin kale oo uguba oo ku cusub dowrka beesha caalamku ay ku leedahay Soomaaliya waxaan xusuusinayaa beesha caalamka oo ay ugu horeyso SRSG-ga Catherine Online in dowrkeedii uu maqan yahay dadkaasina ay sugayaan waxaan kaloo xusuusinayaa bulshada Soomaaliyeed in dhibaatadii halka ka dhacday la taageero lagu taageero in deegaanadaasi ay nabadgelyo buuxda helaan oo nabadda la adkeeyo laga shaqeeyo sidii nabadgelyo waarta loo heli lahaa waxaan halkan ka hambalyeeynaya dawladda Puntland madaxweynaheeda iyo shacabkeedu taageeradii la milaawaanka ay ka geysteen sidii dadkaas looga dulqaadi lahaa dhibaatadii lagu hayay waxaan kale u mahadnaqayaa dawladda federaalka ee Soomaaliyeed madaxweynaheeda iyo xukuumadda uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Xamsi waxaan leeyahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladda federaalkaaba waad ku mahadsantihiin dowrkii aad ka geysateen soo afjaridii dhibaatada dadka haysatay dastuurka haddeerta la isku hayo ee la leeyahay ha laga tashado waa la qabaa anigu ummadii Soomaaliyeed hadashay ee tiri taladiisa ha loo dhamaado laakiin baarlamaanka Soomaaliya labadiisa aqal waxaan ku bogaadinayaa in markii ugu horeysay shalayta oo bisha ay ahayd 24 bishan aynu ku jirno ee January ay aqoonsadeen xuquuqda dastuuriga ah ee ay leeyihiin shacabka ku dhaqan gobolada SSC Khaatumo iyo maamulka ay sameysteen waxaan leeyahay labada aqalba waad mahadsantihiin waan idinku bogaadinayaa waxaan hadalkayga ku soo koobaya waan kaga baxayaa Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay midnimo waxay u baahan tahay wada jir waxay u baahan tahay iskaashi shacabka SSC Khaatumo waxa lagu yaqaanay haddana ay u taagan yihiin ilaalinta iyo dhowrista midnimada qaranka Soomaaliyeed oo ahayd wixii loo dhibaateeyay ee loo dilay ee loo barakiciyay walina waa u taaganna waxaan si xusuusinayaa shacabka Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeedba warbadeenna iyo barigeena yaan la kala jeclaan qofkii hadlaaba wuxuu soo hadal qaadaya badii baa la qaatay warbadda la qaatay waxa la mid ah dalkan la kala jarayo ee lagu heshiiyay in la kala jaro marka waxaan leeyahay badeena la yaan la qaadan barigeena yaan la kala jarin aynu madaysnaano aynu qaran ahaano aynu meel uga soo wada jeedno waad mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh